yaa arkay isbitaalkii Cumar Dhoole. Shalay galab anigoo wadada lugeynaya, xoogaa dabayl iyo daruuraba ay jiraan. Goobtu waa meel cidla ah oo degan kana baxsan magaalada. Anigoo mahadsan waqtiguna igu dheeraaday ayaan hal mar soo agmaray isbitaalkii Cumar Dhoole. Waxaan jeclaystay inaan u leexdo oo aan soo yara bariidiyo bukaanada mucaashaqiinta ah si aan u soo daymado xaaladooda una soo ogaado. Waan ku leexday Judhi oo aan galay ayaa doctor degdegsani oo tallaabeynaya buugaaga qalin gacanta ku wada ayaan su'aal ku yara boobsiiyey. Doctor qaybtee weeye qaybta bukaanada culus. Doctorka ayaa igu warceliyey inaan jaranjarada aan raaco qaybta kore aan u daadego isagoo hadalka boobsiinaya ayuu intaa igu warceliyey. Tilmaamtii ayaan raacay. Intii aan sii socday waxay ishaydu qabanayeen bukaano tiro beel ah midba midka kale ka liito kana nugul yahay oo kuwa qaar ah ayaa jeclaysanaya inay naftu ka haado inta ay bukaan ahaan lahaayeen oo waxaaba u xidhan faleembooyin aad u waaweyn midab ahaanna uu yahay casaan sidoo kalena biyaha ku dhex jirana uu yahay guduud. Sidoo kale faleembadaasi waxaa ku xardhanaa weedho anigoo ishoo la raacaya oo weedhahaasi dirqi ku akhrinaya ayaa hal mar isheed waxay qabatay weedhaas waxay ahayd haddaad dhimato geeridu mar bay noloshu dhaan tahay. haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaan tahay nafay ku takadu maskaxdaydu waxaa ka dhex guuxaya su'aalo tiro beel ah. weli jaranjaradii dhankeedii ma aanan aadin oo hoos ayaaba weli ku suganahay. waxaan raacay jaranjaradii anigoo amakaagsan marba qof isha aan la raacayo ayaana hal mar isha qaac ku siiyey qol ay ku qoran tahay qormo sidan u dhigan qolka dhimashada. yaab yaa makaag waxaan jeclaystay inaan galo. waan galay anoo socodka yareynaya marna hareeraha iska eegaya naxdinna ay igu jirto. maxaa khaldantalo waxaan arkay waxyaabaan hore u arki jirin. qolku ma ahan qol caadi oo sahlan. waan galay qolkii qol wada caddaan ah oo aad u weyn. sariiro midab ahaan cagaar ay ahaayeen ayaa yeelay qolkaas. bukaana aanan in yarna nuuxsanayn ayaa beerbeer u wada jiifa. maskaxdoodana ay maqan tahay qalbiyadoodana laga wada qaatay oo laga xaday. halka kuwa laga jibiyey raasumaalkii qura ee ay lahaayeen ee qalbiyadooda ahaa ayaan hoos ku soo maray mar dhoweyd. yaab yaa makaag derbiga iga soo horjeeda ayaan hal mar qoraallo ay ku xardhan yihiin ku arkooday. waxaa buux dhaafiyey bukaanada ee haddana mucaashaqiinta ah xogahooda ayaa ku xardhanaa anoo dadka magacyadooda derbiga ka akhrinaya iyo xogahooda oo dhammays ah ayaana arkay magac yar aan dushaas ka naqaanay oo 2 sano ka hor igu wardambaysay. waxaan ahaa qof si degan wax u akhrinaya si aan u fahmo wax walba oo dhacaya iyo ogaanshaha inaan ogaado xaqiiqda wax waliba oo aan arkayo. waxaa hal mar si degdeg ah igu soo galay waardiyihii qolka isaga oo shoogsan igu leh ka soo noqo lama ogola yaa kuu fasaxay inaad gasho qolkan. hadalkiisa iguma socdo si akhriskii ayaan sii watay oo igu qayliyey hadalna uu ku celceliyey. yaa kuu soo fasaxay aaway idhikaarkaagii. oo soo dhaafay qolkii anigoo raadinayay qaybta sare ee qolka bukaanada liita. talow waxaan ku soo arki doonaa Odhan maayo kaadaba intaad keli